magaalada Isbaarta ee dalka Turkiga waxaa tababar loogu soo xiray Dufcaddii lixaad ee ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Gorgor oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaa ka qayb galay munaasabadan saraakiil sare oo ka socday dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya. u qaybsamaha arrimaha ciidamada ee safaaradda Soomaaliya ee dalka Turkiga General Maxamed Xuseen Garabay ayaa ka warbixiyay tababarka ay ciidamadu qaateen iyo siday ugu dhabar adeegeen xilligii qaboobaha. wuxuu sidoo kale u mahadceliyay saraakiisha ciidamada tababarka siinayay iyo dowladda Turkiga. waxaa maanta sharaf weyn noo ah xafladda quruxda badan ee ku saabsan tababarkii guutada danab urur ka tirsan ee ururkii lixaad ee firqada danab ku qaadanaya wadankan muddadii la soo dhaafay 4 bilood ahayd. maanta xafladan quruxda badan loo soo agaasimay si loogu soo gabagabeeyo tababarkoodii iyo qalinjibintoodii. waxaa sharaf weyn waa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada Gorgor qaybtan lixaad ee halkan ku qaadatay tababarkan khaaska ah. waxaa sharaf weyn u ah in aan ka soo qayb galno maanta oo halkan ku daawano fantasiyadoodii dhoolatuskoodii military iyagoo u babac dhigay qaboobihii iyo qadoodigii iyo tababarkii cuslaa ee halkan ay ku qaateen muddadii 4 bilood ahayd. run ahaantii waa guul weyn oo soo hoyatay dib u yagleelidda dhismaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed muddooyinkii ugu dambeysay. dowladdan walaalahanahay ee Turkiga ah ee sida deeqsinimada leh ugu hagar baxaysa dhismaha jiritaankii iyo nooleyntii soo celintii sharaftii iyo karaamadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed u tafaxaydatay isla markaasna la garab taagan tababar iyo taakuleyn iyo tilmaamba. runtii waa abaal weyn oo ummad ay u gasho ummad kale. waa abaal weyn oo ummadda Soomaaliyeed taariikh badan qalbiga ay ku hay doonto in sanad walbaba sidaan oo kale xafladan quruxda badan leh ee la soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen dhammaan xubnaha sarsare ciidanka qalabka sida ee wadankan macallimiintooda iyo saraakiishooda. run ahaantii anigoo ka faa'iideysanaya xafladan anoo ka wakiil ah ergada Soomaaliyeed ee wadankan Turkiga safaaradda Soomaaliyeed ee ergada Soomaaliyeed ee wadankan Turkiga anigoo magacooda ku hadlaya magaca wasaaradda gaashaandhigga anigoo ku hadlaya magaca taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee dhammaan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan anigoo ku hadlaya dhammaan dowladda Soomaaliyeed ee sharafta badan ee nasiibka u yeelatay in ay dib u dhisto ciidankeeda xoogga dalka Soomaaliyeed magacooda ku hadlaya. waxaan leeyahay waad mahadsantihiin. innagana waxaa nagu waajiba inaan qulubtayna ku hayno oo cilmiga iyo caqliga iyo talada wanaagsan ee halkan laga bartay aan dib ula noqono dalkayna hooyo. dowladda Turkigu waxay Soomaaliya ka taageertaa dhinacyo badan waxaana muddooyinkii dambe qayb lixaad ay ka qaadanaysay dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Axmed Cabdiqaadir Ismaaciil Axmed Darwiish magaalada Ankara.